بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeyso waxaan salaamayaa asxaabta qaaliga ah oo aanu saaxiibadan nahay marka xigta halkan waxaan rabaa inaan in yar waxa weeye idinka tuso oo ah waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed mar walba iyaga dabka inoogu jira sida la hadligeed waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed dabka loo deyn raggu hadeer waxa weeye intayada qurbaha joogto way garanayaan cunnada hadda sida loo sameeyo waad aragteen hadda adeegeygii waad aragtaan adeegeyga anaa soo habaystay waxba yaan been la idin sheegay ragga qurbuhu cunno ma sameystaa iyaga ugu macallinsan suugada aan kariyo gabadhaha qaar baan ka suuga macaana deewaan yaala layla yaabin gabdhaha Soomaaliyeed yay ninkan isfaanayo maxaa laakiin de baahidu way ku baraysaayo markaad kaliga tahay de cunnadaada hadii lagu dhaho karso waad iska karsanaysaa waad iska habaysanaysaa hadda waad aragtaan baastadaydii baan karsanayaa halkan suugadii baan ugu kala galay adeegaygu waa kan halkan aan ku jarjaranayaa de gabdhuhuna waa ku mahadsan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin waxa weeye waliba gabdhaha walaalaha iyaga maadaama de intaas oo dhan ay noo adeegi jireen haddana waxa weeye Soomaalidu dhaqan bay leedahay ceeb bay u haystaan cunnada in la karsado ceeb bay u haystaanba sida la aligeed cunnada inaad karsatid maaha raggu inay mararka qaar kood gender balance caadi weeye caalamku ka jira haday gabadhu markeeda gasho adna aad gashay dib kuma aha gabadhu waa inaad la shaqaysaa taasaan waxa weeye kula talinaa dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin ragga waxa weeye isweyneenayo dhahayo anagu cunno ma karine cunno diyaarsanaa noo keeno rag gabdhaha ku caayay arrintaas waa arrin qalad ah waxaan u sheegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed in gabdhaha Soomaaliyeed la shaqeeyo gabdhuhu waa walaalaheen wax walba way noo qabtaan haddana waa in waxa weeye loogu mahad celiyaa xataa hadayna mararka qaar kood ma garatay waana salaamantiina asxaabta sharafta leh